10 qof oo kamid waxa la yiri waa hal qoys ka soo jeedaan bal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wallahi waa arrin aad u xanuun badan 12 qof oo hal qoys ka soo jeedo yaa kamid gaari waa ka dulbooday maca salaam halkaas dadkii iyo ku dhamaadeen tan kaliya ma waxa ka horeysay dhacdo sanadkii hore eedana meel tan aan ka fogeyso wadadan lafteeda ah eedana 12 qof saano kale gaari qaad wado oo ku dilay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد إنا لله وإنا إليه راجعون maanta dadka Soomaaliya waxa taala taasi aad xooggan murugo iyo tiiraanyo leh 13 qof dadka qaar 12 qof bay sheegayeen yaa hal meel yaa ku dhimatay waxay ka dhacday dowladdeegaanka Soomaalida inta u dhaxayso Gillo iyo waliba Qabri Bayax aaga Qabri Bayax ay mataa hartan ka dhacday geeri xanuun badan weeye haddaba dadkaasi sidee ku dhinteen oo falanqayn doona hadii bay yiraahdo geerida xanuunka badan maanta la soo sheegay 13 qof hal meel lagu aasay dadka qaarna waxay dhaheen waa 12 qof hal qofna waa garow ama mataqaana waa sakraad oo aad ba mataqaana xaaladiisa ay u daran tahay dadka qaarna soo sheegay labada xog mataqaana way jiraan waxaa jiray gaari qaad wala ah ma qaad wado dadkan gawaarida qaadka wado ad garanaysaano waxa moodaa inaysan fiyowen mana fiyo runtii waayo waa dad dhowr habeen soo jeedaya darooga mataqaana ka buuxdo dhulkiiba aysan arkaynin xitaa gaariga way iska wadaan ma ogi xitaa ma arkaan wax ka horeeyo geed weyn oo ka horeeyo ma arkayaan waa la dul mariyo marka gaari dad shacab saaran yihiin iyo dul mar waxyaabaha murugada sii dhigay waxa kamid 12 qof oo kamid waxa la yiri waa hal qoys ka soo jeedaan bal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wallahi waa arrin aad u xanuun badan 12 qof oo hal qoys ka soo jeedo yaa kamid gaari waa ka dulbooday maca salaam halkaas dadkii iyo ku dhamaadeen tan kaliya ma waxa ka horeysay dhacdo sanadkii hore eedana meel tan aan ka fogeyso wadadan lafteeda ah eedana 12 qof saano kale gaari qaad wado oo ku dilay eedana way taallay 12 qof hal goob yaa saano kale yaa lagu aas oo gaari saano kale qaad wado yaa ka dulbooday marka waxa loo baahan yahay dawladda in dadka gawaarida qaadka wado in u sameeyaan wax xadidan hadee qaadka uu qalalaya waa in laga gaarsiiyo diyaarada loo geeyo in shacabkeena la baabi'in dhameen lahaa diyaarad kharashkeeda haday awoodaan wax ku qaataan hadii ko aanan ahayn shacabku wadooyinka xiranayaan ma dhici karta maalin kasta in 12 qof 15 qof hal goob lagu aaso oo gaari xun oo qaad daroogo cararaya mataqaana la yiraahdo laynaya suurtagal ma wax ka baxay waa aadamo weey xoolo ma aha 12 neef oo ariga ka musan dulboodin waa qof bil aadan adigoo kala weey waa qof boqolow ah يا ما أهم حيوان أما متغناي صورة قلمة عرفتم وإن لقى إيديا وإن لقى هلا وإن ضدك عدالة إني هلاون وإن لا حساب تما ضدك متغناي قات كود كو شركة هاسكله يكون هو ذا جوارد أنت جاري حوار أنت هلاك ملك وادي كرو in laga diido waxa la mid ah gawaaridan ciidamada ay wataan new police oo kale xawaaro waxa lagu wadaa kii u dambeeyay oo aan
khayr aqli ah oo xataa hadduu gaari ka hor imaado markaan laga joojin karin laga dulboodi oo markaas waa lagu dhihi 20 qof aa dhimatay war dadkii waxay iska noqdeenba muxuu ahaa sidii jiirkii ama muxuu ahaa quraanjo muxuu ahaa wada socoto la dul maray un cadi waxaa lagu xumaado wey dadkaas maanta rasaas ma layn dee waad ogeydeen rasaasan wayna laysay maal ogeyd wixii doolla ka dhacay u dambeeyey taasay u dambeysay waad garanaysaa haddana 12 qof 13 qof hal meel ee ku qurbaxda dadka intaa la eg marka ee maanta ka dhimanaya ee u dhimanaya gaari darooga la cararaya inuu qabto maxay maamulka uga aamusan yihiin marka sanadka hore dee dhacday haddana ay taagan tahay way sii socon waa shil haa shil ahaadee waxaa rabaa shilkan inuusan soo laaban laakiin marka sabab ku dhacaa waa shil haddii lagaga harka hore marka uu dhacay waa shil uu sii socon waa shil maxaa isbedel marka may in wax isbedelaa loo baahan yahay in waxaa la rabaa tallaabo laga qaado oo la yidhaahdo gaari intaas ka badan lagu wadi karo qaata ka soo baxa meesha orime ka soo baxo hadduu imaanayo meel heble waa inuu intaas saacadood inuu soo socon karaa oo la qiimeeyo intuu ku socday gaarigi laakiin ma ahan in la iska fasaxo oo waxay doonaan ay sameeyaan oo doon si soo buuxiyaan oo 5 habeen 6 habeen soo jeedaan oo indhi wax aysan ka arkeynin kadibna dadkii mataqaan la iska baabi'ina laga dulbooday gaari dhan oo dad saaran yahay baa la dul mariyaa ya iyagana way dhimanayaan dadkana way leenayaan iyagana dhintaa way u tala galeen waa ninkaas daroogada intuu ka dhargay dhowr habeen soo jeedayba asaga nolol uma taalaba laakiin shacabka yuusan naa galaafan shacabka yuusan naa galaafan waxaa halkan tacsiir tiiraanya leh oga direennaa bahda bidaan media qoyskii iyo qaraabadii ee dadka intaa la eg ay ka baxeen ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo qalbiga ilaahay idin qaboojiyo بدل خير قبنا إلهي يديكم بدل قف ممكن يراد بدل خير قبا إلهي هو بدله قف قارب حكسو دعيا أو هبل يهبلو قف إيجا قيمة بدل مياتشر إلهي بقى قارنا يا سادة بعد المركة قف قيمة بدل إناد إلهي كسيو بدل كيسة يا ما تخانا كل رجيننا مركة تدكي ما تدكاسي كبحين maanta murugaysan caloolxumada badan dareemayo waan la dareeminaa xaqiiqdii waan la dareeminaa waan garan karnaa waxa dhintay mataqaana waa aadamo weye 12 qof waa hal meel mataqaana ku dhimatay wax oo aqli gal ah mataqaana ma wax macquul gal ah ma waxa loo baahay maamulka inay meesha tagaan ka tacsiiyaan hawshaasna ay guda galaan aysan mar dambana soo noqon oo tiir lagu xiro ragga mataqaana waxaa sameynaya dadka mataqaana sida bilaashka ku laynaya maalin walba wax dhici kara mataqaana ma wax laga xumaado wey in gaari daroogo la cararaya oo shacabkaadi maanta uu saas u baabi'iyo sana ka horna uu baabi'iyey haddana weli ay kuwa hor le mataqaana ay iman doonaan ilaaha naga haye wax laga xumaado runtii marka ilaahay mataqaana dadkaas uu naxariiso dhammaantood ehelkii qaraabada ay ka tageenna ilaahay samir iimaan ilaahay ka siiyo